السلام عليكم كلا وأنا أصحابي كسو دوابا قلن كمانتا إيا مقال عصوب فضلا هدي أنا عصوب تاجنا الكنيسة بسكراب سار سي شير جري لايك تناكي لاوين سي دير قلين نوغو نقطو ما سندين وحاسي كريا عداودة هذا القرطوم oo isku diyaarinaysa in ay u dhamayso Portugal hadaba yaa badbaadin doona ma laga yaabaase doondaar sheekadan inuu soo dhaxgalo iyo kulmo kala duwan oo dhacay macluumaadyo intan in ka badan waxay idinku soo gudbin doonaa gudaha muuqaalka fadlan nala dhamayso ugu horreyn aan ku bilaabo waxaa sii kordhaya cadaawada ay isku qabaan dhowr qofood oo kala duwan oo qayb ka ah filimka Carlos Usman Hazal Khartoum oo iyadu isku diyaarinaysa inay Portugal u dhamayso wada kasta ha ku qaadatee waxay doonaysaa sidii ay ugu dhameyn lahayd sidaan wada ognahay Hazal waxa ay daandoor u sheegtay inay doonayso oo waajib ay tahay inuu dhinto Portugal intuu uusan ku dhawaaqin magaca qofka dhaxli doona xukunkiisa daandoor sidaan wada ognahay waa qof aad ugu baqaya Portugal sidaa darteed daandoor wax jawaab ma uusan ka bixin hadalka Hazal ka soo yeeray laakiin Hazal sidaas kuma joojin doonto sheekada dhinaca kale haddaan eegno arrinka Dangur waxa uu Usman isku dayayaa inuu badbaadiyo Dangur aabaheed oo uu ku jiro gacanta Angola mar kale Usman iyo dagaalamayaashiisa waxay soo hadi doonaan dhinaca diisaanyada sidoo kale waxaan daawan doonaa Bamzi oo Dargun iyo qaar kale oo kamid ah geesiyaasha Usman oo la dagaalamaya diisaanda iyadoo hadalkoodu uu yahay badbaadinta Dargun aabaheed sidoo kale waxaan daawan doonaa oo soo muuqday markaan eegno Abdurrahman Gazi iyo sidoo kale Bamzi waxaa sidoo kale aragnay farxad iyo reereen inay ka muuqato niyadda Usman iyo sidoo kale Gandos laakiin Sevgi iyo Doondoor halkaasi wax farxada uma taalo waxaana wajigooda ka dheehan karnaa xanaaq aad u badan Usman waxa uu kulanka ka sheegay wuxuu uu ahaa wiilka Portugal Gazi haddii geeridu ay jirto waxaan diyaar u ahay inaan ku dhinto wadada xaqa ah iyo dagaalamayaashiisa oo u dhaartay inay xaqa u hiilin doonaan Nicola iyo Dargun waxa ay kulmi doonaan mar kale oo uu ka duwan yahay markan kulamadii hore kulankan Nicola wuxuu mindidiisa qoorta ka saarayaa oo kaga hayaa Dargun waxaana uu ku dhahayaa arrinka Usman la wadaagtay waad ka shalay doontaa Sevgi iyo Gandos waxay u soo baxayaan si wada jira laakiin waxa isweydiin mudan sababta ka dambeysa wada jirkooda intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal muuqaalkan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar sina share garay like tina ka ilaawin si dhiirigelin noogu noqoto muuqaalkan muuqaalka xiga nabadgelyo